kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mawduucina maanta intaan barnaamijka ugu dhigelin haddana janaalka baarka 252 ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladina soo socda muuqaalkan share dhaha mahadsanidin. Ernesto Valverde ayaa ku dhawaaqay liiska xiddigaha Barcelona ee ka qaybgalaya kulanka Slavia Prague ayaa ka maqan iyaase ku soo baxay. Haddaba liiska xiddigaha kooxda Barcelona oo ku dhawaaqay tababare Ernesto Valverde ee ka qaybgalaya kulanka caawa ay la ciyaari doonaan Slavia Prague ayaa waxa ay kala yihiin Ter Stegen, Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Arthur Melo, Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Neto, Simon Lenglet, Moussa Wago, Griezmann, Jordi Alba, Frankie de Jong, Arturo Vidal, Junior Firpo, Inaki Bena iyo Ansu Fati. Ciyaarta caawa waxaa dhaawac ku seegi doona daafaca reer Spain ee Sergio Roberto kadib markii dhaawac looga saaray ciyaartii Barcelona as eber isbuucan gudihiisa ay wada ciyaareen. Ogeysiis ku saabsan ciyaarta caawa kulanka Slavia Prague vs Barcelona tartanka UEFA Champions League wareega guruubyada lugtiisa saddexaad garoonka Sanabo Stadium garsooraha Bob Modan xulka Scotland saacada ciyaarta 4 saac oo habeenimo xilliga Geeska Afrika. Shaxda macquulka ah laga yaabo kooxda kubadda cagta Barcelona inay ku soo gasho caawa ayay waxay kala yihiin Ter Stegen daafacyada Semedo, Piqué, Salman Lenglet, Jordi Alba khadka dhexe De Jong, Busquets, Arthur Melo weerarka Messi, Suarez, Griezmann. soo socda kulanka caawa Barcelona vs Slavia Prague. janaalka baarka 252 fadlan rukuma janaalka haddaa ku cusub tahay inta muuqaalkan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.